halkan waa raadiyaha iyo TV-ga City waxaana ay guux qodobada ugu waaweyn ee caawan idin hayno waxaa kamid ah meydka Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo lagu wado in laga soo dejiyo garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho galmudug oo ku baaqday in laga digtoonaado dhagar ay maleegayso dawladda Kenya wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo faahfaahiyay heshiis uu kala saxiixday safiirka dawladda Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya wasaaradda caafimaadka galmudug oo agab caafimaad kala wareegtay dawladda Soomaaliya iyo hay'ado caalami ah beelo walaalo ah oo ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud oo heshiis la dhaxdhigay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo ka qayb galay aaska Allah u naxariistay taliyihii hore ee ciidanka booliiska Soomaaliya wasaaradda ka tirsan dawlad goboleedka galmudug iyo hay'ado caalami ah oo shir uga furmay magaalada Dhuusamareeb galmudug oo ku baaqday in la joojiyo dagaalada ka soconaya qaybo kamid ah maamulkaasi qodobadaasi waxay nagu soo kordhay aad dhageysan doontaan kuna daawan doontaan saaxiibayaal warkeena habeenee raadiyaha iyo TV-ga City anigoo guuxa ayaa soo saaray halkan ka soo jeedinaya ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan aynu ku bilaabnay saaxiibayaal meydka Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya علي مهدي محمد ayaa laga soo dejinayaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde marxuumka ayaa ku geeriyooday wadanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi waxa warbixintan eegaya Zakariya Cusmaan Cabdi guddiga wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble iyo xilsaare aaska Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Ali Mahdi محمد ayaa sheegay in maalinta birita la keenay dowro janaasada madaxweynaha Umar Mahmoud Maxamed gudoomiyaha gobolka Banaadir gudigaasna kamid ah ayaa sheegay in shaqada gudiga ay tahay diyaarinta habka maamuuska dawliga ah ee aaska qaran ee loo sameeyo madaxweyne Ali Mahdi Allah naxariistay Ali Mahdi ayaa ku geeriyooday xalay isbitaal ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya isagoo da'diisu tahay 83 jir maantay oo ah 12ka bisha Mars waxaa isu yimid guddiga aaska qaran ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya guddigaas oo loo magacaabay sidii maamuuskii iyo aaskii qaran loogu sameyn lahaa madaxweynihii hore ee geeriyooday mudane Cali Mahdi Maxamed Allah u naxariisto sabri iimaanna bulshada Soomaaliyeed Allah ka siiyo iyo familkaba guddigaas waxa uu ka kooban yahay 11 xubnood oo isugu jira wasiiro xildhibaano iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa mas'uuliyadoodu ay tahay qaabaynta iyo borotokoolka dawliga ah sidii loo marsiin lahaa aaskaas waxaa lagu wadaa meydka madaxweynaha in la keeno berrito dalka Soomaaliya oo laga soo duuliyo magaalada Nairobi ee dalka Kenya meydka waxaa la filayaa in janaasada madaxdu ay ku dukan doonto marka hore kadibna bulshooyinka Soomaaliyeed ay janaasada kula dukan doonaan goobta aasku uu ka dhacayo insha Allah taala intaas ayaan rabnay inaan la wadaagno meediyaha وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزارة الصومالية هي جدي ككوبان كوي طبعا حبنات أي كمتيهين وزيرو حلبانو يقدميها قبل كبنادر وحل سعري قمن قاوضة أسكا علاونا حريسته علي مهدي محمد سيدو كلام مدحوينها جمهورية فيدرالك الصومالية محمد عبد الله فرماجو أي كنا باقي إن سدح مالين أو برديق على سمين دونو إسلام مركانا عالن كجمهورية هوسلو دجين دونو سيلو ماموسو madaxweynihii hore ee Soomaaliya Ali Mahdi oo ah madaxweynihii afraad ee jamhuuriyadda yeelato Zakariya Cusmaan Cabdi raadiyaha telefishinka City Jawhar aad u maasantahay Zakariya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa faahfaahiyay heshiis oo maanta Muqdisho kula saxiixday safiirka dawladda Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya heshiiskan ayaa waxa uu qayb ka yahay heshiisyo dhowr ah oo wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ay markaasi
kula saxiixatay wadamo dhowr ah oo ku jira naadiga Paris ee arrimaha deyn cafinta 10 wadan ayaa ku bahoobay naadigan dowladda Talyaaniga waxa ay ka mid tahay dowladaha markaas deynta ku leh Soomaaliya isla markaana ka cafiyay wasiir Beyle oo warbaahinta u sharaxay heshiiskan maanta uu la saxiixday safiirka Soomaaliya ama safiirka Talyaaniga oo fadhiya Soomaaliya waxa uu sheegay in uu qayb ka yahay wadamada doonaya in Soomaaliya ay deynta ka cafiyaan waxaana uu sheegay in hal wadan oo kaliya oo Ruushka ah uu ka harsan yahay Bismillahir Rahmanir Rahiim waxa aan la saxiixnay heshiiskii deyn cafinta safiirka u jooga halkan dowladda Talyaaniga aad iyo aad baan u faraxsanahay in saxiixaasi soo gabagaboobo sidii aan hore u sheegnay waxa weeyaan dowladdii tobnaad dowladdii sagaalaad 10 baa ku jira naadiga Paris 10kii dowladood mid baa inoo hadhay midaasna waa Ruushka intii kale oo dhan heshiiskooda waa saxiixnay heshiiskii deyn cafinta heshiis bugtay ku bikacso heshiiskani waxaan ku saxiixnay deyn cafintii Talyaanigu lacag weyn ugu lahaa waxaa kale oo halkan aan ka sheegaya waxa weeye deymahan laynagu lahaa way kala badan yihiin way kala yar yihiin way kala duwan yihiin 10ka dowladood ee Paris Clubka ku bahoobay Talyaanigu waa dowladda saddexaad markaad eegto lacaga lagu leeyahay lacagta ugu badan waxa lahaa Mareykanka ta ku xigtana Ruushka lahaa iyo ku saddexaad bahay marka maanta halkaas ayay taas ku soo gabagabowday waxay noogu xigi doonaa Ruushka iyagana heshiiskoodii waa wadnaa waxaan filaynaa dhawaan iyagana inaan soo afjari doono waxay noo harayaan marka waxay noqonayaan dowladii kale ee gaar ahaan Carabta iyo wixii Carabta la halmaala Carabta iyo institutionskooda ayaan iyagana shaqo weyn ka wadnaa halkaas deymihii leedin sheegi jiray ay ku soo afjarmayaan laakiin de shaqadeena si wadnay tahay waxyaalo kale oo fara badan baa looga baahan yahay si aan lacagaha deeqda uga helo adduunyada inaan ku sii soconno ku sii tallaabo qaadno taasina way naga go'an tahay inuu dalkan dhibaatada ka baxo oo aynu adduunyada la falgalo oo adduunyada la tallaabo qaadno wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya galmudug haddii aynu eegnana waxaa wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedkaasi ay agab caafimaad kala wareegtay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo hay'ado caalami ah oo ay ka mid tahay WHO Maxamuud Cali Cumar Daacad gargaar caafimaad oo iskugu jira agabyo kala duwan oo kuwa laga hortago xanuunka safmarka ay COVID-19 iyo qalab lagu baaro caabuqa ayaa wasaaradda caafimaadka galmudug kala wareegtay hay'adda iyo wasaaradda caafimaadka federaalka Soomaaliya qalabkan ayaa loogu deeqay dhammaan cusbitaalada galmudug waxaana shirkaddan gargaarka ah siday diyaarad gaar ah gaarsiisay Dhuusamareeb agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka galmudug Cabdiwali Maxamed Axmed ayaa kaga mahad celiyay dowladda federaalka iyo hay'adda gaarsiisay agabkan caafimaadka ee COVID-19 labna halkan inaan uga mahad celino hay'adda caafimaadka adduunka WHO iyo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka oo labaduba soo gaarsiiyay agab loogu talagalay ka hortagga iyo baaritaanka loogu talagalay cudurka coronavirus markii ugu horeysay ayaan waxaan helaynaa agabka degdega loogu baaro muxuu ahaay lagu ogaado cudurka oo si degdeg ah muxuu ahaay loogu baaro WHO noo keentay iyo agab kale ay WHO soo gaarsiisay sidoo kale wasaaradda federaalka ayadana waxayna soo gaarsiisay adeeg kale oo looga hortagayo cudurka dhammaan waxa loo isticmaali doonaa waxyaalaha soo gaaray oo wasaaradda federaalka iyo WHO naga soo gaaray intaba ka hortagga cudurka halista ee ka jira muxuu ahaay adduunka iyo dalka intaba waxaana loogu talagalay in xarumaha caafimaadka la gaarsiiyo loo qaybiyo xarumaha caafimaadka si looga hortago loogu ilaaliyo shaqaalaha frontline-ka loo yaqaan xarumaha caafimaadka ka shaqeeya iyo sidoo kale muxuu ahaayay dadka adeega usoo doonanaya xarumaha caafimaadka wacyigelinta inay ka qayb qaataan wacyigeliyaashu isticmaalaan tagaya guryaha tagaya agabkaasi marka baahi badan aan u qabnay uu naga go'nay haddana qaybtaasaan soo gaartay laakiin waxaan halkan ka cadeynaynaa in waxana soo gaaray waxaan haysanaa intuba aysan ugu filayn aan u baahannahay
oxygenkii dhabta ahaa iyo muxuu ahaayey meelihii oxygenka saxda laga heli lahay waxaan haysanaa hadda waa oxygen yar oo aan capacity-giisu qof xanuunsan oo aad u dhibaataysan aan kaafi karin marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in la soo gaarsiiyo adeegaas waxaan kaloo u baahannahay in PCR-kii weynaayo lagu baari jiray muxuu ahaaye covid-ka oo kaysas badan lagu baari kala maalinta inaan helno waxaan hadda haysanno waa baaritaanka degdega oo muxuu ahaaye isku halayntiisa laftiisa ay muxuu ahaaye aysan ahayn sida PCR-ka weyn oo kale marka PCR-kaas weynaan u baahannahay oxygenaan u baahannahay waxaan u baahannahay dhammaan agabka lagula tacaali karo cudurka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaalo ugu jirta gaar ahaan wasaaradda caafimaadka sidii maamul goboleedyada qaar ay u gaarsiin lahayd agabka looga hortagayo cudurka safmarka ee coronavirus. Shixnadan gargaarka caafimaadka ayaa ka qayb ah dadaalada dowladda federaalka iyo galmudug ku doonayaan in lagu dhimo khatarada sii kordhaysa ee safmarka COVID-19 oo tiradii ugu dambeysay galmudug laga diiwaan geliyay toddobaadkani. Maxamuud Aacad, raadiyaha telefishinka City, Jowhar. aad u maasantahay daacad isla galmudug beelo walaalo ah oo maalmihii ugu dambeeyay ku dagaalamayay deegaano dhowr ah oo ka tirsan dowlad goboleedkaasi ayaa heshiis la dhaxdhigay iyadoona halkaasi ay ka socdeen heshiisyo ama badalaalo lagu doonayay in dagaaladaas lagu joojiyo waxa warbixintan soo koobaya Zakariya Cusmaan Cabdi beelo walaalo ah oo ku dagaalamay deegaanka Xanaanbuur ee gobolka Galgaduud ee maamulkaasi galmudug ayaa shir weyn dib u heshiisiin loogu furay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi waxaa shirka ka qayb galay odayaasha labada dhinac ee beelaha halkaasi dirirta ku dhaxmartay xubno ka socday dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug shirka ayaa waxaa daafuray gudoomiyaha baarlamaanka galmudug waxaana halkaasi hadallo kooban ka jeediyay qaar ka mid ah hogaanada dhaqanka ee labada dhinac oo sheegay in ay diyaar u yihiin inay dhaqan geliyaan heshiiskani gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa beelaha dirirtu dhaxmartay ugu baaqay in ay heshiiska uu noqdo mid laga gaaro is-afaham markan aysan ka dhicin wax isku dhaca deegaanka Xanaanbuur ee gobolka Galgaduud dowlad goboleedka galmudug sida ay noo taabatay arintan iyo inta dib u dhac ay nagu sameysay muddadii halkan oo ka socday dagaalkii iyo waqtiga aan gelinay ama ay naga qaaday waxaan u malaynayaa wax nooga dhib badan ama nooga xanuun badan ama nooga dib u dhac badan inuusan jirin sababtu waxaad ogtihiin xilliga uu ku soo aaday dagaalkaas iyo marxaladda ay maraysay galmudug iyo maamulkeedaba iyo hawsha u tiilay ee culeyskii saarnay oo dadka galmudug oo dhan oo u baahnay dib u xurayn dib u heshiisiin maamulkii inay dhisaan oo yagleelaan oo dib u habeeyaan inta laga soo maray iyo culeyska aad ogtihiin muddadii dheeraad loo fadhiyay markii la dhaqaajin lahay culeyska oo nagu ahay dagaalkaasi aad u dareemi kartaan culeyskii kale oo galmudug kor saarnay oo ahay dib u heshiisiintii federaalka iyo doorashadii iyo shirarkii halkan ka dhacay iyo culeyska oo nagu haya dagaaladaas waa dareemi kartaan habeen iyo maalin inaan laga seexan una midaysnayn in arrintaas xal laga gaaro waxaa aad u dareemi kartaan inta nooga baxday naf iyo maal oo maantay haddii sida kale loo xisaabiyo galmudug noo xurayn lahayd ama aan guul ka gaari lahayn dowladnimada galmudug iyo xurnimada galmudug iyo cadowga galmudug wax badan ka qaban lahayd laakiin maantay oo aan meeshaan soo gaarnay waxaa ilaahay mahadiisa oo u mahad celinaynaa in aan garannay ama aan isla fahamnay dhammaantayna dhibaatadaas inaan soo afjarno soo albaabkeeda soo xirno albaabo badan oo noo yaallo aan wax ka qabsanno inta garatay inta ka qayb qaadatay ilaahay ajir iyo xasanaad ha ka siiyo waana u mahad celinaynaa mar haddii la yidhi islaamnimo iyo caqli iyo diin midna kuma fiicna meel lagu ammaanana lama arko dad walaalaa inay inta dagaalaan isdilaan
kala guulaystaan wada khasaaraan meel ay ku fiican taha lama arko bal inay fiican taha iska dhaaf qur'aanka asoo na tusaayo ama alla na tusaayo ayuu wuxuu noogu mitaaliyey man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaannamaa qatala annaasa jamiican xataa intii ku dhimatay ma aha laakiin albaabkaas qofkii fura oo xiran wuxuu la mid yahay dadka alla abuuro dhan asoo alla la galay challenge iyo taxaddi la galay oo yidhi waa dhammaynayaa dadkaas ama dadkaas dhameeyey ayuu la mid noqonayaa qofkaasi nabigeynuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay inta kaliyaha dagaal lagu geli karo inay tahay dagaal diin ama caqiide ku saabsan laakiin mid kaloo la geli karaa aanu jirin ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar waxaad moodaa sida aan diinta ugu jajabanahay sida aysan qof nooga harayn markii aan gelayno masaajidka laakiin haddana aayadahaas iyo axaadiistaas in mararka qaar ay naga adkaanayso caadifadda ama waxa la yidhaahdo qabaliyadda. askariye cusmaan cabdi raadiyaha telefishinka city jawhar. aada u mahadsan tahay askariye. meydka allah u naxariistay taliyihii ciidanka booliiska Soomaaliya Maxamed Jaamac Muuse ayaa maanta lagu aasay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. allah u naxariistay marxuumka waxa uu tiro 2 jeer ah uu markaasi taliye u soo noqday ciidanka booliiska Soomaaliya. waxaa ka warbixiyay oo taariikhdiisa kooban aqriyay Generaal Maxamed Yuusuf Madaale oo kamid ah saraakiisha ciidanka booliiska Soomaaliya. Axmed Jaamac Muuse wuxuu isagoo ka yimid booliiska dalka Ingiriiska yimid Soomaaliya 1967 waxaa lagu qaatay darajada major ee ciidanka booliiska. wuxuu ka soo shaqeeyay hoggaanka CID iyo hoggaanka Interpol ee xiriirka dibadda iyo dambiyada caalamiga ah. 1988 markii uu dhintay taliyihii hore ee ciidanka booliiska Sareeye Guuto Aadan Cabdi Ducaale wuxuu noqday taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya. wasaaradda ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedkaas waxa uu uga furmay shir looga hadlayo arrimaha biyo la'aanta ee ka jirta deegaanada dowlad goboleedkaasi iyo sidii shacabka deegaanadaasi ay u heli lahaayeen biyo nadiif ah. mas'uuliyiin ka kala socday hay'ado caalami ah iyo kuwa ka tirsan dowlad goboleedkaasi Galmudug oo ay uga horeyso wasaaradda biyaha iyo tamarta dowlad goboleedkaas ayaa ka qayb galay. waxaa warbixintan soo koobaysa Sagal Siman Xasan Maxamed. kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka Galmudug ayaa magaalada Dhuusamareeb uga furantay wasaaradaha qaar iyo hay'adaha caalamiga ah. waxaana wasaaradda biyaha iyo tamarta Galmudug ay kulanka ku soo bandhigtay baahiyaha jira ee ku saabsan sidii shacabka Galmudug ay u heli lahaayeen biyo nadiif ah iyo nadaafad. agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka Galmudug Cumar Xasan Xaaji, wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Galmudug Mahdi Caabi Ciise ayaa ugu horeyn ka hadlay. mudane wasiir waxaan rajaynaynaa insha Allah in bisha June ee soo socota hadii la hay'admo aan la wadaagno dhammaan line ministrieska dowladda waxa Galmudug biyo ku baxa oo gargaar ah, waxa caafimaad ku baxa, waxa waxbarasho ku baxa, waxa ku baxa shelter protection cluster kasta waxa Galmudug ku baxa bisha June insha Allah bikrim. wasaaradda gargaarku waa ay la wadaagi doontaa ayadoo ka helaysa 2 soos oo kala duwan xogta intaysa shirarkan bilaaban ama wasaaraduhu involved ay ku noqon ama coordination loo sameeyo inay maanta ka fiican yihiin markii la fiiriyo supportiga ay haystaan, markii la fiiriyo shaqadooda sida ay u socoto oo loo daadejinayo, marka la fiiriyo activity-gii socon jiray caqabadihii oo yaraanayo. waxaan isleeyahay hay'adaha runtii wax badan ayaa maanta la qabtay. qaybta washkan saasan ka rajeynaa insha Allah taala oo baahida ugu weyn maanta Galmudug haysata ay qayb ka tahay. wasiirka biyaha iyo tamarta Galmudug Maxamuud Kaarshe ayaa daahfuray kulanka. meetingkana maanta wuxuu ku saabsanaa inaan iska xog wareysano wash ama waxyaabo la xiriira biyaha iyo faydoorkooda xog kala qaadano
kadibna aan wixii tala ah aan ku kala qaadano waxaan rajeynayaa gabagabada kulanka ama kulanka ay noqon doono mid waxtar ama dood ama wada sheekeysi waxtar oo ka soo baxo ra'yi saliim ah oo ka soo baxo aan isku darsano kadibna aan ra'yigaas aan la falgalno hadduu ilaahay mar labaad waxaan mahadcelinaa kasoo qaybgalkiina dulqaadkiina iyo saa u aqbasheen kulankan si gaar ahaan mar labaad waxaan uga mahadcelinaa hay-adda facility ama fududeysay kulankan inaan isugu nimaano ee adra waxaan rajeynayaa hay-adaha kalena saas oo kale inay miitinada soo socda ka qayb qaataan waa ogtihiin miisaaniyadda dowladda iyo budgetka iyo markasta waa iska yaryahay wada shaqeynta hay-adaha aan la shaqeynaa inta badan wax badan lagu fududeeya aan ugu wada shaqeynaa marka mar labaad aad uga mahadsantihiin kulankeena noo furan yahay sagal siman raadiyaha iyo telefishinka city jowhar aad u mahadsantahay sagal isla galmudug inta aynu ka bixinna waxaa dhanka kale mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedkaas ay ku baaqeen in la joojiyo colaadaha ku soo noqnoqday deegaano dhowr ah oo ka tirsan dowlad goboleedkaasi maxamuud cali cumar daacad wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha galmudug ayaa ku baaqay in laga hortago colaadaha ku soo noqnoqonaya deegaanada dowlad goboleedka galmudug dhammaan odayaasha dhaqanka deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayuu ugu baaqay in ay ka qayb qaataan sidii looga hortagi lahaa wax walba oo lidi ku ah amniga deegaanada galmudug wasiir dowlaha ayaa dhanka kale waxa uu soo hadal qaaday inay dowlad goboleedka galmudug diyaar u tahay sidii looga kaashan lahaa amniga deegaanada galmudug waxaan ogsoonahay in colaadu ay annaga ahaan soomaalideenu ay tahay dhiigbax dhaqaale mid bulsho iyo mid dhaqan xaqiiqda markii laga hadlo dhaqaaleennana way baabiinaysaa bulshadeennay baabiinaysaa dhaqankii aan lahaynna way baabiinaysaa colaad noocaasa inaan maalin walba aan u taagnaano waxaad moodaa dib u dhac weyn oo dowladnimadaana way keenaysaa marka waxaan leenahay colaadu faa'iido badan annaga xaggeena nooma lahana ilaahay waxaan ka baryaynaa in qalbigeena isku soo jiito wanaagga iyo sharafta waxaan rabaa aan u soo dhaco odayaasha dhaqanka ee halkan jooga xaqiiqdii maanta loogama fadhiyo arrintooda oo kaliya inay xalliyaan hadday moodaan arrintooda oo kaliya inay xallinayaan arrintooda oo kaliya inay xalliyaan halkan loogama fadhiyo waxaa looga fadhiyaa inay xalliyaan dhammaan arrimaha nabadda ee ku saabsan galmudug dhammaan waxaa la rabaa odayaasha inay u xirtaan siday u xallin lahaayeen dhibaatooyinka colaadu ee galmudug dhex taalla xalinteedaa laynka sugaa laakiin ha moodinina in arrinkiina intaad xallisaan oo keliya halkan aad ku kala dareeri doontaan mar walbana annaga waxaan diyaar in la nahay amba in la garab taagannahay wax allaale iyo wixii walaala talanima aad uga baahataan dowladda galmudug waxaa nala taagan oo nala garab taagan madaxweynihii maamulka axmed cabdikaariye gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiye gacal madaxweyne ku-xigeenka cali ciid oo run ahaantii arrinkan aan ognahay maadaama aan nahay wasiiradii galmudug habeen iyo maalin soo jeedka amba xalka ay u baahan yihiin in laga gaaro dhibaatooyinka kusoo laalaabanaya galmudug oo dhan waan uga mahadcelinaa intaas waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr maxamuud daacad raadiyaha telefishinka city jowhar aad u mahadsantahay daacad qaybihii dambe ee warka ayaan isla soo garanay saaxiibayaal guud ahaan intaas ayaan jeclahay inaan ku hakiyo warka raadiyaha iyo tv-ga city anigoo guuxa ayaa soo saaray halkan idinkala socodsiinayay dhanka kaamirada waa saaxiibka zakariya cusmaan cabdi inta aynu ku kulmi doono warkankiisa xiga isma dhaafno